Waxaan ka hadlaynaa waxtarka caafimaad ay noo leedahay basasha. Maxay ka kooban tahay? Basashan aad u jeedaan aad iyo aad ayay caafimaadka ugu wanaagsan tahay. Haddaba aan fiidiyowgeena gudagalno. Bismillah. Allahumma salli calaa sayyidina Muhammad. Waxtarka koowaad oo basashu ay noo leedahay aad iyo aad ayay waxay ugu wanaagsan tahay caafimaadka gabdhaha marka dhiigu ka tago 50 sano markay gaaraan gabdhaha dhiiga caadada ayaa badanaa ka taga. Markaas waxay ka caawinaysaa lafahooda inay isku dhexyaacaan. Xanuun waxaa jira lafaha daciifiya, xanuunkaas way ka ilaalinee. Basasha waxaa ku jira bakteeriyada oo waxay ka ilaalinee. Basasha bakteeriyada xun ayay caloosha ka ilaalisaa. Sidoo kaleeto basasha aad iyo aad ayay waxay ugu fiican tahay. Waxaa ku jira antioxidant aad u wanaagsan oo basasha hargab oo kale haduu kugu dhaco dabka aad koobiya dabka saartid xabad basal ku ridid oo cabtid iskuma arkaysid basashaasna calalisid oo waxay siyaadisaa difaaca jirka. basasha maasha Allah aad iyo aad ayay waxay ugu wanaagsan tahay waxa loo yaqaan waxay ka ilaalinaysaa xanuunada sokorta oo kaleeto. Sokorta ayay hoos u dhigtaa oo heerarka sokorta dhiiga kacsan caafimaadka wadnaha aad ay ugu wanaagsan tahay. maxaa yeelay basasha waxay ka kooban tahay in ka badan 20 maado oo antioxidant aad u xoog badan. basasha waxay ka ilaalinaysaa basashan aad u jeedid waxay ka ilaalinaysaa xanuunada sida kansarka oo kaleeto qaar kamid ah sida midka ku dhaca caloosha oo ragga mid waxa jira ku dhaca oo malawidka gala aad ay ugu wanaagsan tahay. basasha subxaanallah waxay u fiican tahay caafimaadka lafaha oo waxay siyaadisaa lafaha dhisidooda ayay siyaadisaa oo aaday basashu ugu fiican tahay. basashan aan cuno u jeedid basasha maxay ka kooban tahay horta asxaabe waxay fiiristi basasha xabadan basasha u jeedid waxay ka kooban tahay 85% waa biyo. sidoo kale waxaa ku jira calorie ayaa ku jira, waxaa ku jira fiibaro ayaa ku jira. sidoo kale basashan aad u jeedaan waxaa ku jira vitamin C, vitamin B, waxaa ku jira potassium oo sidaa daraadeed waxay u fiican tahay caafimaadka wadnaha, dhiiga kor u kaca, dadka sokorowga intaas oo dhan way u wanaagsan tahay. basasha aad iyo aad ayay caafimaadka ugu fiican tahay. midda cagaaran waa la cunaa fuul markaa subaxii cunaysid basasha cagaaran lagu cunaa. basasha waa la cunaa cuntada lagu darsadaa aad ay u wanaagsan tahay. dheefshiidka way u fiican tahay haduu qofku caafimaad qabo. sidaa daraadeed basasha waxay ilaalisaa bakteeriyada caloosha ku jirta oo xunna way ka saartaa, midda naafica oo fiican oo caloosha ku jirtana way u fiican tahay. maxaa yeelay waxaa ku jirta maado ay qani ku tahay basasha oo bakteeriyada fiican ilaalisa. asxaabta basasha hadaa caloosha ka jirantee ama dadka caloosha ka jiran dibiro ayay ku koos karaysaa, markaas ha isku badinin. sidoo kale basasha iyo toonta urqurmoon bay leeyihiin laakiin waxyeelo kale bini'aadanka uma leh. dad aa dhaha xayawaanaadka qaarkiisa xanuuno anemia ka qaadaan laakiin ani ma tijaabin, laakiin bini'aadanka waxyeelo kale ma leh. asxaabta fiidiyowga like dhahaya sii share gareeya. assalaamu calaykum waraxmatullaahi